بقر عثمان أبو محمد بيرمضو وكمل اسمه وأول سومالينا ayaa xarimaad sharafeed balaaran degmada Darawani ee gobolka Sanaag ugu sameeyay badida boqorada salaadiinta guurtida ee ogaasha gobolka Sanaag martiqaadkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay Suldaan Saciid Yuusuf Xaaji Ducaale Suldaan Cali Yuusuf Badacas Suldaan Ismaaciil Nuur Wacays Suldaan Maxamed Axmed Cali Shaarcase boqor Axmed Cali Ducaale boqor Maxamed Nuux Aadan boqor Maxamuud Ismaan Nuur Chief Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi Xero Caaqil Maxamed Cabdi Faarax siyaasiyiin aqoon-yahano iyo waayeel aad u tiro badan oo ka kala yimi dhammaan deegaanada gobolka Sanaag inta kadib shir jaraa'id ay halkaasi wadajir ugu qabteen madax dhaqameedka iyo oqaasha gobolka Sanaag ayay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay diiradda ku saareen xoojinta nabadgelyada diiwaangelinta iyo taageeridda gulihii xukuumaddu ka gaadhay shirarkii nabadeynta ee deegaanada oo Bogays Shimbiraale Dhume iyo Darkengeeyo iyagoo bulshada reer Sanaagna madax dhaqameedka ugu baaqay inay si mug leh isu diiwaangeliyaan si ay ula tartamaan gobolada kale ee dalka gobolkeenu waa gobolka ugu ballaaran gobolada Soomaaliland waa gobol aad iyo aad boqolkiiba 30 ayuu ka yahay dalka waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco gobolku tiradiisa ha muujiyo waxaan kale oo aan mahadnaqayaa oo tahreereynaya nabadeyntii iyo shirkii Bogays ka dhacay iyo kii Shimbiraale iyagana waan tahreereynayaa waana u mahadnaqayaa u diraynaa nabadeyntii ka dhacday Bogays waftigii uu shirka madaxtooyada hogaaminayay uu ka qayb galay nabadeyntaana aad iyo aad baan ugu guubaabinaynaa waftigii ka dhacday Shimbiraale iyadan aad iyo aad baan arrinkaa waayo gobolka nabadgelyadiisu waa shay qaali ah waftigaasu aan ugu mahadnaqaynaa gobolka Sanaag waxaan leeyahay ma dhowe inta codaysay inaag baa dambaysay ayaami qaar baa dambeeyay hal dagaal oo tuuga dawlaya inuu kala hidano hal dagaal baaqas iyo baamka ay soo saaray salaadiintu waan ku baxsanahay shacbiga reer Sanaag meel kasta kala joogaan gobolka intoodii isdiiwaangelisay garatay qiimaha ay leedahay diiwaangelin muujiyay karaamadii dalka iyo dadka intoodiiba waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin waxaan kaloo soo dhaweynaynaa annagoo afka dhaqanka ku hadlayna gobolka Sanaag shirkii ku dhex maray Bogays xukuumadda iyo beesha walaalahayo halkaa deganaa Cali Axmed waa iyagana waa soo dhaweynaynaa loo hambalyeynaa gobolkana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada kala mid baanu nahay salaadiinta hore iyo boqoradii waxaan kaloo ugu baaqaynaa in isdiiwaangeliyaan waa la tartamayaa nabadgelyada ka dhacday Bogays ka doon taageeraya Bogays waxa weeyaan hadeer ma aha Bogays waxa weeyaan beertii qofka 9 kiiloomitir ka raayay Abriga tagi midnimada la yaxay ka mid ahayd Bogays iyo Shimbiraale iyo Garowe waxay lagu horeeyay inta bari suuqi marka iyo yubbi marka waxa weeyaan Bogays waa meel awr hore uu la masalay waxaan soo dhaweynay nidaam kasta oo nabadgeliyo oo dawladdu ay madax dhaqameedka hor soo dhaweyn waxaan aad iyo aad u leenahay markii aanu fahanay oo aanu diiwaangelintii u diyaar garoonay baa diiwaangelintii naga tagtay haddaan nahay su'aalaha fadhiye fooda cadde kula la qaybteed waxaan leenahay hanalo koriyo hanalo ku soo celiyo waxaan taageerayaa shirarkii ka qabsoomay nabadgelyada Bogays iyo meelaha la mid ah wasiirka madaxweynaha handa sidii gobolka Sanaag qabsatay kasta oo xukuumadda ay tahay iyo haddii ay tahay commission iyo haddii ay tahay dadweynaha reer Sanaag dhammaantoodba maxaa sidii wanaagsaneed waxaan mahad gaar u jeedinaynaa boqor Ismaan Abu Maxamuud oo suurta geliyay inuu soo nimaadno gurigiisii ee qasriga cusub ee uu dhameeyay anigu waxaan leeyahay jazakallahu khayr salaadiinta iyo boqorada iyo oqaasha iyo wareerka waxgaradka reer Sanaag waxay hambalyeynayaan xukuumadda Soomaaliland wadada ceerigaabo waxqabadka ka qabanaya waxaan rajaynaynaa inay dhammaystiraan wadadaas intaan xilkooda ka degay taasina waxay noqon doontaa taariikh iyo legacy ballaaran oo ka tegay madaxweynaha xilka iyo xisbigiisa hadday intaa ku guulaystaan dargeliya hala dhameeyo reer Soomaaliland maanta diyaar waa inay idingeys kala taagaan waxay dhammaan salaadiintu isla qaateen inay hambalyeeyaan nabadeynii kala go'yinta Sanaag ka gashay Darkan iyo Dhumay iyo Ashuurweyntii ay ka gashay Bogays ay wateen wasiirada faraha wasiirka madaxtooyada wasiirka faafinta wasiirka dibadda
dejinta wasiirka dowlaha booliska iyo wasiirka biyaha aad iyo aad u mahadsanyihiin dadaalkii ay ka qabteen gobolka madaxweyne ku-xigeenka oo dadaal weyn ka qabtay iyo gudoomiyaasha xisbiyada qaranka oo dadaal weyn ka galay doorashada howlwadeennadii ka galay diiwaangelinta dadaalka badan baday fara badan oo dadaal weyn ka galay gobolka iyo kala duwan aad baan ugu mahadnaqaynaa taas intaa weeye waxaanu baaq guud u soo jeedinaa somaliland inay nabadgelyo wadaashato cid walba waa wadan waxaanu ku fadhinaa leena ku yeelaya waa nabadgelyo ومحمود محمد حسن صراف واربعين قرن كصومالي لان أرجع